saxeexayaasha anoo idinkaydin matalaya ayaan ka mid ahaa heshiiska doorashada iyo habraacyada saddexda ee lagu dhisayo guddiga doorashada heer federaal guddiga doorashada heer dawlad goboleed iyo guddida khilaafaadka ee heer federaal saddexdaba saxeexaygu waa ku yaala magacaygu waa ku yaala taa macnaheedu waxay tahay magaciinni baa ku yaal idinkaan idinku matalaya waa habraacaynu ku kalsoonnahay waxaydun tusteen ilbaxnimo iyo xadaarad maanta inaad halkaa u fadhidaan idinkoo 1,000 qof ah xildhibaanadii labada gole ee kuraasta ku fadhiyay iyo walaalahoodii lahaa waa idinla tartamaynaa oo tiraahdaan mikrofoonkana aynu ka wada hadalno mar dhowna cadku cuniyo cunbuu ku wanaagsan yahay ama waa caano jiilaal cambacan dareeriye aynu tartanno walaalaheen cidii ay u codeeyaan xildhibaan qaran ha noqdo soo maaha walaalayaalow koonfuray abiil baanu idin diraynaa cabashaanu idin diraynaa baaq baanu idin diraynaa waxaanu leenahay reer waqooyi haddaanu nahay oo xadhiggii midnimada Soomaaliyeed ah oo Soomaali midowgeeda qayb weyn ka ahaa oo halgankii gobonnimo doonka Soomaaliyeed ee 60kii iyo ka hor door shariif ah oo muwaadinimo oo Soomaalinimo aan ka soo qaadanay xorriyaddii 60kii calankii keenay heesihii hirgalay ee dawladnimada lagu dhisayay keenay qaranka Soomaaliyeed qayb weyn ka ahayn burburkii kadib qayb muhiim ka ahayn artay yagleelkeedii qayb muhiim ka ahayn waa ugu mahad celinaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo walaalaheen reer Djibouti doorkii ay ka qaateen Soomaaliya dib inay cagaheeda isugu taagto taa qayb baanu ka ahayn dib u dhiskii intaas oo dhan xadhiggii midnimada aanu taagnayn una taaganahay walaalayaalow ijiid aan ku jiida waa gacmo daalise iska daayo doorashaanu diyaar u nahay kaalaya walaalihiin baan nahay mar dhow qofka Soomaaliyeed markuu musharaxa qiimeeyo ee uu yiraahdo warkeeba uu khudbad wanaagsan iyo annagu madaxweyne farmaajo aan jecelayn inuu noo soo noqdee keeba dalka hore u wadi karay xodxodashadu waa halkeeda oo waa xodxodan kartaan oo waa la hadli kartaan laakiin haddii afxuma ka tagto iska fogeysi waxaynu diyaar u nahay doorasho waxaynu diyaar u nahay in doorasho loo dareero oo aynu istooranno laguna kala nabad galo waayo 4 sanadeed markay dhamaadaan de waa in tartan la galaa doorasho la galaa murankaasi doorashadii buu dib u dhigaya taa macnaheedu ma waxay tahay doorasho diyaar uma yihiin dib hal la igu dhigo maya waqtigeedaynu ku dhacaysaa doorashada waqtigeedaynu ku qabanaynaa waa ka shaqaynaynaa hadday tabasha jirto oo aad leedahay qof iyo 2 iyo 3 baan dareen ka qabaa diyaar baa loo yahay in lagu dhageysto oo la yiraahdo qof iyo 2 iyo 3 bal hal la eego hadda meel fiican bay maraysaa guddida shalay waa istooratay gudoomiye iyo ku xigeen bay doorteen waxa loo dhaqaaqayaa jadwalkii inay diyaariyaan in tartan iyo doorasho loo diyaar garoobo loo dareero yaan la idin jahawareerin ku mashquula doorashadii iyo sidaad u xodxodan lahayd cod bixiyayaashii iyo kursi walba anu beela kursigiisa kuma haysto kula tartami maayo cismaan xagaana kuma haysto xagaa ilmaadiradii baa la tartamaya beelana ilmaadiradii baa la tartamaya soo maaha waa inaga gudaheennii kii soo baxaaba kii inantu dhashaba abtaal loo yahay marka inta iyada xilka joogtay intiina doonaysa inaad timaadaan diyaar baanu nahay inaydun halkii ka sii wadaan oo wax wanaagsan gaarsiisaan wuxuu yiri ninkii waa la ii dardaar warinayaa darajada yaa cirku uu darooraynayaa goor u diiyaa walaalow yeynaan isu dardaar warinin walaalow almiidaanu waasic doorasho diyaar loo yahay oo loo dareerayaa la qaban doonaa insha Allah qofkii loo calfuun baana soo baxay heesta maanta la qaadaya waxa weeyaan dibidaatina noqdaan doonaya walaal ay dooray ama daadku qaaday halkaas aynu maraynaa waa mahadsantihiin guulaysta Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha guulaysato Soomaaliya ha midowdo